السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا أقصد هذا وعلى سؤالكنا وتقني حنا في القين تورد ما يقولها هي بنان كبار. يس. برتما هو برتما هو تقانين ورك ودن بي سؤال سعوتين به. ما أنت وحنا كهذا دب على فكيلي هاي ما أنت ورت حنا كبدأ عكت يا سياسة دي وحاصل ورت ميل بس كلينا ما أنت ورك وجابين هاي ور بدل معها وحواي ورك عمو واي واني ولا الكين أو سوماليا أو لواي يا marka warku ku saabsan waa warbaafin waa baafin la baafin qofkaasi loo sahlo marka hore sabta ninka magaciisa waxa lahaa dib calafka leeyahay lahaa magaciisa waxa la Ali Jibril baa lahaa da'diisu waa 58 jir soo socotiin iyo hadda maxaan lahaa dhererkiisa ya ama inchkiisa oo taqaaniin waxa waaye 50 inch markii uu waxaan ugu dambeysay aragtiisana waxa uu xidhnaa blue jeans iyo maxaan lahaa grey jacket buu xidhnaa ninkaana waxa aragti ugu dambeysay aduu baa calafka leeyahay December 1 2022 markaas saacadu markay xaan dhahay 8 subaxnimo 8:30 in the morning ninkaan wuxuu degan yahay waddanka Canada gobolka Alberta ee magaalada caasimadda loo yaqaan Edmonton buu degan yahay markaas ninkaas wuxuu sameeyay delivery uu sameeyay cunto uga geeya cunto la doomarkii oo meelahaas uga geeya wallahi ninkan oo de waa sayn ku sheegay 8:30 baa u dhimay waxa aragtay ninka hadda ma nool yahay ma dhintay mala dilay ilaa hadda meel waxaan dhacay ilaa hadda wala garanay booliisku way soo baareen ilaa hadda ku jira investigation bay ku jiraan markaas inaguna hadda Soomaaliyeed waxaan ka codsan lahaa balaa waxaan dhahaa ninkaas haddaad wax khabaar ku ogtay ama taqaani ama aqoon leeyahay waxaan dhahaa badan waxaan ku codsan lahaa xarunta booliiska inuu waxaan dhahaa inuu dariskiina si dhaqsaha badan waxaan dhahaa imaan galiya ama u robot gareeya si ninkan loo sahlo ninkan waa nin iska masaakiin oo shaqaysanayay oo riskiisa raadsanayay ciyaali family baa sugaya waa ninka arkiisa waa ninka daad inta leeg marka wallahi no de in la saawiyo fiicanta ma fahanteen marka please waxaan ka codsan lahaa haddaad ogtihiin si dhaqsaha badan wax information ogtiin waxaan dhahaa meesha reportka laga imagaliyo yes anigoo aan live ma arkay hal mar kaliya maxaan dhahay waan iska masaakiin wallahi oo iska dacado iska masaakiin hadee markaas waxaan ka codsan lahaa ninkaas da ogtiin wax akhbaarad ka haysin si dhaqsaha badan booliiska laga warbad garay iyo maxaa kale iyo waxa sheegayaan xana Soomaaliya horta way been ma ku nacay Soomaali aad u been badan you know why waxay ku leeyihiin ninkan ya social media ay soo galiyeen xanda shalay maanta xanda dhex wareegaysay ay leeyihiin xanda ninka waa ni dambiile askar baa raadinaysa xagga ma ka dhacday waxaan dhahaa booliiska raadinaysa ninkan waa la waayay ninkan dambiile ma qof ma dilin Soomaaliya waxaan ku nacay waa been iyo balaayo social media waxaan ku codsaday walaalayaal ka daaya beenta badan qof hadaad garanay wararka newska oo sax hadaad hayn beenta badan aad dadka masaakiinta aad u soo gudbinaysaan ka daay please don't ever do that again because it's lying stop spreading the liars ninkan maxaan dhahaa qofna ma dilin magaalada buu na degan yahay anaaba aqoon u leh waa nin iska masaakiin shaqaysanayay inta delivery sameeyay we don't know where he is please marka joojiye baanta badan ay soo galayso sameeyay linka xana ni dambiile haddana waxay ku leeyahay xitaa waa ni xana lacag baa loo balan qaaday qofkii soo hela kotkum baa la siinaya maxaa ku tagay ninka dambiile ninka magaalada degan ma qasan waddanka degan come guys stop telling the lies people marka waxaan ku codsan lahaa walaalayaal saan ugu sheegay ninkan waa ninka sawirka arkaysi xana gaasha ku yaal ninkaas waaye please wax khabaar doysiin meesha booliiska ka robad garay وعلى warku waa gaabin saan ku sheegay maanta waa warbaafin gaaban waa siyaasi ismaqal dambe iyo maxaan dhahaa iyo isaragta dambe hal mid baan waxaan ku ilooday waxaan ku codsan lahaa video waxaan fiirsaday dad boorto way fiirsadaan ya share like comment ka ma yaqaana siiba dadka waayeelka malaha I don't know lama socon social media technology lama socdaan marka hadaad aqoon wiilkaaga yar ama gabadha aad dhashay kulay way taqaanaaye share iyo like comment meesha laga sameeyo weydii ida ku sheegaysay marka sidaas iyo maxaan ismaqal dambe wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh bye bye